soo dhawaada dhammaantiin soo dhawaada waa maaragtay channelkeeni iyo casharadani xiisaha lahaa. Maanta waxaan fiirinaynaa adoo yaqaana value-ga horeeto ama numberka horeeto noun value-yada iyo numberka oo aad rabtid inaad gaartid adoo yaqaano inaad prediction aad ku samayn kartid excelka. taasaan rabnaa. waxaan sameynaynaa laba nooc, mar ayadoo linear ah oo the same amount uu korayo revenue-gaaga, iyo mar ayadoo ay tahay growth ay tahay oo different amount uu maaragtay uu salalka noqonayaan uu korayo ama uu kobcayo businesskaaga. Okay, January waxaan haysanaa 8,488. waxaan rabnaa by June inaan gaarno 32,500 bilahan. marka waxaan halka rabaa in aan samayno. Okay, waa dooranaynaa waxaan tegaynaa editing groupkan tegaynaa waxaan dooranaynaa fill, hoosa imaanaynaa waxaan dooranaynaa series. boxkaana noo soo baxay, waa aragtaan marka typeska linear aan leenahay, linear trend aan taabsanaynaa. Okay aan leenahay, waa haysanaa marka bisha labaad waa inaan intaan samayno, bisha shanaad waa inaan intaan samayno si aan ku helno cadadeeni ahay 2,500. waxaa kaloo aragtaa inay linear tahay because the same amount $4,802 inay mar walbeeto kordhayso. taasaan u taabatid the difference between these two months February January waxaa weeye $4,802. haddaa inta taabatid the difference between the last 2 months waa the same amount. ma garatay, waxaan isticmaalnay linear trend aan isticmaalnay marka hadda aan buuxsanayna meelashaas. haddaan rabna growth trendkana sidoo kale waa select garaysanaynaa the first noun value. waxaan kaloo select garaysanaynaa meesha aan rabno objectivekeena uu yahay. serieskaan taabanaynaa the same place aan tegaynaa. this time waxaan dooranaynaa growth, waxaan leenahay trend. Okay aan leenahay. hadda the same lacagtaan ka bilaawnayna weli waa sideedii, lacagtii aan rabnayna waa sideedii, laakiin bilahan hadda si u kala labada bilooda hore wuxuu revenue-gu kacay 2,615, laakiin labada bilooda ugu dambeeyey fiiri, labada bilooda ugu dambeeyey difference-ga u dhexeeya. marka bilihii dambeeto aan waxaan generate garaynay more revenue. magarata, marka to get inaan inta ka bilaawno 8,488 to get to 32,500 saan u tagno. bisha labaad waa inaan intaan samayno, bisha saddexaad waa inaan intaan samayno, waa haddii ay tahay growth trend. bisha afraad waa inaan intaan samayno, bisha shanaad waa inaan intaan samayno. sidaasaa halka ku tegi karnaa. ma garate, khiyaarta channel ku xiran waxaan idin baray maanta sida loo isticmaalo linear trend iyo growth trend adoo adeegsanaya excel. waxaa inoo ballanaa casharada dambe. sidaas iyo nabadgelyo.